الرحيم ujeedada maanta aan isugu nimay xarunta iyo odayaasha saddexda qodob oo afhayeenka hore u sheegay inaan ka hadalno dowladda federaalka dhibkeeda mid hadda nagu bilowday maaha wax badan ayay dhib nagu haysay wadadiyaan u mari waynay waxaa maaragtay dhibaatada inagu hay labada wado koonfur galbeed tan baraawa aad tan baydhabo soo aadaba dhibaatooyinka ka jira waa la arkayaa wax badan aan kala hadalnay aan hor fariisanay kor i hoosaan u hadalnay warka aan ku hadlayno dhaga duleelo kuma dhicin hadda ertadan waxaa ugu daran gobolka doorashaa ka jirta shaksi kastoo u dhashay koonfur galbeed inuu tartamo la doorto waxna doorto xaq buu u leeyahay qof u diidi kara ma jiro laakiin waxaan leenahay dadka inakaa dhalnay nala dhasheene dhulkay nala leeyihiine dowladda federaalka dhexdhexada ka ahaato dhibaatooyinka mataqaanaa galmudug ay ku wado oo kale ayay noo keentay haynaga dayso qofkii bulshada rabto ayadaa dooranaysa ninkii maaragtay xildhibaanadaasu doortaan ayaa dhulkan madax ka noqonayo ma rabno dhibaatadiina soo martay mid mabid ah inayna soo marto ma rabno anninka dad waay arag ee baanu nahay 27 sano dhibka ka dhacay mataqaanaya soomaaliya ka dhacay saddexdaa gobol bay ka dhaceen dad nabadgelyada faa'iidada ay leedahay og baa nahay dad nabadgelyo xumada dhibaatada ay leedahay og baanu nahay ilaa waagii dowladdii 12kii xasan sheekh maxamuud la soo dhisay hal guri waxaa inagu koobay haddii aanu nahay odayaasha oo tabliig naga dhigay subax walba xaafadaha iyo ciidamada iyo meel walba aan ugu kallacno dhibaatadiina soo martay baanu ognahaye waxaan leenahay dowladda federaalka inaga jooji dhibka aad wado inaga jooji dadka annakaa jecel annakaa dhalnay way nala dhasheen nin kastoo ilaahay nasiib u geliyey in la doorto annakaa rabin laakiin marba haddii diyaarad la soo kireeyo oo qaar la soo saaro shalay waxaa yimi magaalada wasiirka gaashaandhiggaa yimi shaqadiisaaba taalee dhibaatooyin badan baaba lagu hayaaye wadooyinkoo dhan baa xeline meel la mara ma lehee tuulo u gudubtoodaan la arkayne maxaa loo bangeliyey maxaa geliyey shaqadiisaba maahe waa la soo diray waxaas oo kale waan u jeedaa eelka haygu ridin waa igama dhegyaryada eelka haygu ridin uu yidhi annaka dhibkaan inagu haysaan waanu ognahay haddii aad tihiin dowladda federaalka inaan idinka tirsanahayba uma qabtaan koonfur galbeed haddii aanu nahay tan haddii aan halkaa kaga baxo nimanka musharaxiinta ah shaksi kastoo u dhashay koonfur galbeed in la doorto waxna doorto xaq buu u leeyahay laakiin maysiin sheegane ani nabadgelyo meeltaala ley wallaka doorada koro siin sheegaan musharaxiinta koonfur galbeed haddii nabadgelyo xumo kooyto oo isan galnyaadinka sheentaan aruu doorasho maka dhiyaasa dhibaato ka dhiyaasa shaksi kasta ha dhowaayan odayaalkii dalka enna doorashada naftiya wa saameenka lena sababtu ma eta hildhibaanadu waa qorday 149 hildhibaan unu ka dhex sheegnay bulshada magayo leyna umbiini laakiin hebel hal doorado hebel diida meeraanu maysiin sheegane nabadgelyada hal ilaaliyey lankuun gurika galiya dowladda federaalka war koo dhigaasa leh iyo mankaa lika geli karood walba makoo dhika korta dowladda federaalka wal iyo koo dhika korta humaanle amuuna korta tan halkaas inta ka baxee tan lamaad bulshada koonfur galbeed dhaxa ka dherigteen roor ka dherigteen dhibaato ka dherigteen awlaadina maaragtay gabdiyaalkii harqaanka iyo mataqaanaa duurka ka u mugleen antaas dhibaatadii maaragtay bani aadan siishaani ahayti haddii nabadii garantina ka jartee dhuugsado nabadda lankii sun gordu waytaan noo roog dhaha
haddii roog diida shafi galanta geliyaa saldugla rida may weelasana hadda ka hor ogtin lama sin idhibirooda ee dhisi fadhiini antaas may raadiyaanay la madaxweyne nagada shariifasin siinan buryaani habashada dhexgelini arrintii adaa ka warqabtan antaasu mataqaanay hadda saacadan hoogaa dadka dharawal mal qabanna walama qobadi wal qobadti may ka mid ulmay tabliignii dhiki dad badan jaranii jaree may iskaabulka dhiki haddii maaragtay walba lanqaban inta ma infidhiin wal mal qaban lanki eru lan uluubahaniin jeeduwu wala la qobani sababto haddii wal lanqabanaada naftaanti inta ku hayto marka tartama fadna may nabadgelin yaani malka tartamaw walaagay la qobadi lanki qobadi mahadnag aniin walaasay ka badana qobadadhe laakiin haddii taargetka walmal qaban iyo hebelada ka dhigata musharax mihiidii aan baarana aan ku haytay makiin baahanini baanootab qof aan baarayaw oo musharaxe mafadaana si sharaf leh lanka sharaxoy walaa usa qobadow sheegoy inkastoo musharaxiintu badan yihiin adduunyadoo dhanba lanka wali tabartiisan hayne qobada ere laakiin wali qobada kore qobado kii hortiis wala haayay usadi la tartamahay ay ambaaraynay kaasoy wal ambaaroo ankooy ma tartan mankooyna maysin sheegane sanjeelna musharaxiinta no atin ariinagaa no atin malaagadina en qofna faguugow ma jaro lan wayba tartamee walaagii santuugaska hela yo walka nagade hadda maylan walba may ka qoraane uno goobroog eno wali habbaha ni raadle ka nagada ya ka qoraan markii uu taas ka qorga ka dambiya tartanka gale marka maysin sheegane nabadgelin hal ilaaliyoy dadti dhaxootiid inti seedow shanshanta kun hanqiibiyaayo binaan bahayraw binaanba walba keedaasoo dhibaato lay abuurase ummadan dhaharto nabadagala meel la fadhow maalinta tartanka kooy ha fadhow inta wali ilaahay ka sii qaaday wali ilaahay kiin diidana ka aqoonsay ilaahay ka aqoonsay warkii intaasa ku kubaxe ragbadana oo ka dambeeye odayaalka wala hiraabtun hakii may waha ani nabadgelina wala nin dhigna intii nabadgelina wala nin dhigna dowlada federaalkana lan shaqadan taalo alxamdulilaahi dalshay bishalhi ririno wasiirka gaashaandhiga baybalo ha loo bangaray initaru arrin eedan qaldan unimini xumaayo hay arrintaas wey arrinteeda ma aqbalaano dowlada federaalka dhibka noo dhaaftay unu isfadaan unu isdooradaan dowlada ogolna la shaqeeyaan dhibka ha noo dhaafo intaasa ka gebagabahay warkaas